السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. een kulanti kale oo xiisa leh iyo is arag kale oo xiisa leh. waa anigoo abti doona. Kuli waxaan idinka raali gelinayaa gaabka maalmahan ku yimiday cashiraanteenii taxanaha ahaa ee inoo soconayay waqtiyadanba. Kuley waa gaab dhankayga ka yimiday. Cafwan baan leeyahay asxaabta iyo cidi kasta oo la socota channelkan abti doon lecturer. Maanta waxaynu qaadan doonaa human physiology ama physiology-ga lagu talagalay qofka medical student-ga. waa course khuseeya qofka kasti oo baranaya caafimaadka inuu wax ka ogaado. waxaan maanta isku dayaynaa introduction-kiisa insha Allah inaynu guda galno. Bismillah. waxaynu bilaaban doonaa human physiology ama physiology wax la yiraahdo. Physiology kulli kasoo guud hadaynu sheegno wuxuu ka hadlaa oo jidhkeenu shaqeynayo, normal functions oo jidhkeena aanu shaqeynayo iyo waxyaabaha ka dhacaya physiological-ka ka dhacaya waxaas oo dhan ka hadlaya adigu. waa course aad iyo aad u ballaaran oo caafimaadkana koorsada vital-ka la yiraahdo weeyaan ugu muhiimsan. Okay, marka leenahay termigan mataqaanaa physiology la yiraahdo wuxuu taagan yahay laba kelmadood physi iyo logi. Phys marka la leeyahay waa natural, waxyaabaha dabiiciga weeyaan. Logi marka la leeyahayna waa study, waxyaabaha dabiiciga jidhkeena ayaa la baranayaa. waxyaabahaas khuseeya labada kelmadda marka la kala saacayo ama la kala qaadayo. Saan hore usoo sheegnay waxaa lagu bartaa study-giisa wuxuu yahay lagu bartaa study waa normal function-ka qofka bini'aadanka ama mataqaanaa sida saxda ah uu bini'aadanku nool yahay la baranayo organism different organism-ka iyadoo ku jiraan chemical-ada ka dhacaya, chemical process-da ka dhacaya, physical process-da ka dhacaya. sidoo kale waxaa jirta kuley sometimes called waxa la science of regulation physiological parameter of the body. waa mataqaanaa joogteynta jidhkeena physiological ahaanta noo lagu baranayaa iyadoo parameters waxyaaba lagu qiyaasayo body jidhka. Saan hore usoo sheegnay waxaa lagu baranayaa mechanical, physical, biochemical property of living organism qofka bini'aadanka. inagoo dadajinayna waxaynu geli doonaa mataqaanaa hal terminology ama hal termisa oo muhiima marka physiology-ga la bilaabayo. Homeostasis waxa la yiraahdaa jira. Homeostasis haddaan kasab ka qaadano waa joogteynta physiological variation-ka jidhka ka dhex jiray si loo joogteeyo ama sida normalka loogu ilaaliyo ama sida set point-ka loogu ilaaliyo. markii la leeyahay homeostasis waxay la mid tahay macnaha waxaa lagu qeexayaa waa xaaladda si loo joogteeyo jidhkeena internal environmentally extracellular fluid waxyaabahaas ku dhashay la joogteyn lahaa waxaa lagu tilmaamayaa homeostasis. si fudud haddaynu ku soo celino kelmaddan waxay tahay homeostasis waa si lagu joogteyn lahaa waxyaabaha jidhkeena ka dhacay physiological ka dhacay jidhkeena. kuwaasoo lagu eegayo in la joojiyo meesha set point. waxaa la eegayaa in mataqaanaa la tixgelinayo saaritaanka la saaraya marka la leeyahay mataqaanaa isu sheeg homeostasis marka la leeyahay waxaa muhiimada la saaraya ereygaas la ku qoran kelmadda casaanka ee set point-ka ah. set point-ka ah meesha loogu talagalay weeyaan, kuwaasoo lagu ilaalinayo variation-nada jira, variation-nada physiological jira jidhkeena ka dhaca. homeostasis sidoo kale waxaa lagu maintain garan karaa xaalad kasta oo jidhku ku jiro si kasta uu yahay in la joogteeyo oo laga dhigo normal lagu soo celiyo either set point or normal range-ka homeostasis la odhanayaa. waxyaabaha muhiimka essential all organisms dhammaan organ jidhkeena horta wada muhiim mataqaanaa joogteynta homeostasis-ka. example tusaale ahaan lungiga wuxuu maintain garayaa respiratory gases in the blood-ka. lungiska-na wuxuu muhiim yahay blood-ka inuu gas gareeyo oxygen ku daro. halka cardiovascular ka muhiim yahay inuu mataqaanaa aan uga baahanahay inuu transport gareeyo substance-ka blood-kiiba lagu geynayaa meel kasta nutrition-ki waxyaabahaas ku dhan. kidney noogu muhiimsan tahay ionic concentration oo ions-ka inay noo joogto sodium, potassium waxyaabahaas oo ku dhan inay noo joogteyso.
halka G ay ka muhiimsan tahay nutritionkii, nafaqadii wixii lamid ah loomo. sidoo kale homeostateska waxaa ku jira waxa lagu joogteeyaa body temperature la joogteynaya, blood compositionka uu ka kooban yahay ionska, waxaasoo dhan uu ka kooban yahay bloodka waa la ilaalinayaa, sugariska, proteinska, waxaasoo dhan baa la ilaalinayaa, concentration of oxygen mataqaana iyo carbon dioxide la ilaalinayaa, bloodka ku dhex jira acid base balance baa lagu joogteynaya oo kidneyda ka dhexdhacda. Homeostat waxaasoo dhan osmolarity-ga, blood pressure-ka, cardiac output-ka, blood pressure-ka macnaha pressure-ka dhiigga, cardiac output-ka inta uu dhiiggeenu mataqaana heart-ku blood saarayo, cardiac rate-ka wadnaha garaaciisa, respiratory rate-ka garaaca mataqaana respiratory-ga intaad neefsanayso kale rate-ka neefsanayso, depth iyo qotada ay dheer tahay, markaad hoos neefsanayso kale, markaad waxyaabahaas kale lagu ogaanaa homeostasis. waa inoo ka soconayna oo dadajinayna waqtiga nagu yar. waxay mataqaanaa waa electrolytes, sodium, potassium, calcium, magnesium, waxaasoo ku dhan weeyaan mataqaanaa waa electrolytes iyo proteins, waxyaabaha ku dhan weeyaan mataqaanaa laga helo extracellularka iyo intracellularka siday ugu mataqaanaa levelada normal levelka ay kula kala yihiin mataqaanaa intracellularka iyo extracellularka. Markaas sodium meel kastoo laga helaa, halka intracellularka laga helaa, extracellularka laga helaa. Waxay ku badan tahay extracellularka, halkay potassium ku badan tahay intracellularka. Sidoo kale macnaha ku kala mid ka socono. jirkeena hadda marka la joogo halka haday homeostasis mataqaanaa homeostasis joogteyntii ama jirka lagu joogteynaya tahay. homeostasis marka la leeyahay waxaa lagu joogteeyaa saddex qodob baa lagu joogteeyaa oo ugu caansan oo idhaahdaan bugtiin Nicholas qodob baan soo qaadayna. saddexda qodob waxay ka sheekeynayaan kow horta mid waxa la feedback control system la idhaahdo iyo feed forward mataqaanaa control mid la idhaahdo iyo adaptation. saddexda qodob baa lagu joogteeyaa. marka la leeyahay feedback mechanism laba mees oo kala baxaya, negative iyo positive feedback oo kala baxaya. ka ugu badan ee la adeegsado weeyaan mataqaanaa feedback control ma feedback mechanism kani la adeegsado weeyaan marka la joogo jirkeena. waxaa lagu controlaa mataqaanaa waxyaabaha kala duwan ee homeostatiska environmentiga. waa laba systemna, waa negative iyo positive feedback mechanism. negative iyo positive aan kala ogaan doonaa mid kasta wuxuu yahay. waa negative feedback mechanism marka la leenahay negative ka horta hadaan kasii qaadano waa ka ugu fiican marka si lagu joogteeyo physiological variable-ka jirkeena ka dhaca ee had iyo jeer suitable-ka ee macnaha ugu fiican in la adeegsado. sababtoo ah wax kasta normalkii buu keenayaa, iyada normal buu keeni ama wuxuu keenay set point buu keeni ama normal range buu keeni normal range buu keeni. waa habka ugu fiican ee mataqaanaa loo adeegsado jirkeena lagu controli karo. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa mataqaanaa inuu salisya kamid ah lagu stimulate gareeyo say functionkooda caadi ugu soo noqdaan. su'aal ahaan haddii ay partial pressure carbon dioxide hoos u dhacdo, carbon dioxide hoos u dhacdo waxaa isla markaaba increase garoobaya ay ku increase garoodo macnaha bloodka hadday partial pressure carbon dioxide macnaha carbon dioxide hadday ku increase garoodo bloodka isla negative feedback mechanism hab la dhaha lagu stimulate gareeyo respiratory centerka macnaha oo mataqaanaa centerka neefta u qaabsan oo medulla oblongata la yiraahdo. dabadeetana halkaas waxaa ku effect ku yeelanaya marka respiratory centerka la stimulate gareeyo in la decrease gareeyo partial pressure carbon dioxide in the bloodka kadibna sida normal lagu soceliyo iyadoo u dhacaysa lagu yiri respiratory centerka la stimulate gareeyo muxuu tarayaa mataqaanaa ventilation rate ku dalacaya oo muxuu increase gareenayaa pulmonary ventilation intii heart-ku wax saaray u dalacayo. marka heart-ki wax badan saarana partial pressure carbon dioxide ama carbon dioxide jirka ka farbaxaysa markaad neefsanayso neeftii diinayso mataqaanaa inspiration kama expiration ka sameysan neefta saaraysa waxa la saaraya carbon dioxide marka carbon dioxide kiba la farbadinaya si partial pressure carbon dioxide looga yareeyo bloodka ka samayna uu sii socdaa isaguna. habkan la yiraahdo mataqaanaa waxa sii wadnaa mataqaanaa negative feedback mechanism negative feedback mechanism-ku isagoo mataqaanaa waxa lagu cabiro kulay in some factors waxyaabo factor lagu qabiday sida parameter kale marka oo mataqaanaa waxa jira mar oo excess noqdo iyo marka oo too little dehydrated. waxyaabahaas oo ku dhan hadaba marka mataqaanaa la adeegsayo negative feedback mechanism-ka mararka qaar kood negative feedback mechanism-ku aad baa loo adeegsan karaa marka qaarna baa loo adeegsan karaa oo systemka loogu talagalay unbaa loo adeegsan karaa. waxyaabaha marka ay serious-ka iyo kale waxyaabaha lagu joogteynayo kale ama uu noqonaya laba qodob mid noqonaya saan soo sheegnay set point either normal value markii waxyaabaha serious-ka hoos loo soo dhigayo meel fiican la gaarsiin la doonayo either set point meesha ugu saxsaneyd baa la geyn ama normal value inuu dhaxaysto. tusaale ahaan
haddii imika waxaas iyo haddii mataqaanaa imika ay yahay mataqaanaa set pointka lagu qiyaasay mataqaanaa sheeg heart rate oo kale wadnaheena garaaciisa haddii lagu qiyaaso 80 haddii lagu 70 haddii lagu qiyaaso 72 haddii lagu qiyaaso either normalka adigu inta u dhaxaysa ayuu noqonayaa normalka inta lagu qiyaaso imika respiratory rate ay tahay mataqaanaa 16 beat per minute 16 beat per minute hadduu yahay mataqaanaa heartiga garaaciisa heartiga garaaciisa hadduu 16 beat per minute yahay waa either inuu noqdaa mataqaanaa 12 ilaa 18 inta u dhaxaysa intaas waxay noqon kartaa normal value noqonaysaa waayahay marka la leeyahay homeostatka lagu controlayo negative feedback mechanismku waxyaabaha lagu control negative feedback mechanism waxaa kamid ah control blood temperature lagu controlo arterial blood pressure lagu controlo pressureka arteriga blood glucose levelka blood gas levelka iyo many others hormoneska waxyaabahaas oo lagu controlade ugu badan weeyaan sababta soo sheegay way kalabaad baan geli doonaa positive feedback mechanism feedback mechanism laban kala qaadnay negative iyo positive negative waa ku fiican ma oranay badana lagu leeyahay jidhkeena sida fiicanna waa loo soo degsadaa either normal value inuu keeno ama uu keeno set point uu keeno labada qodob mid keenay intii miisaantaas way markay leenahay mataqaanaa markaan leenahay positive feedback mechanismna positive feedback mechanismku wuxuu isagu u shaqeeyaa in la soo produce gareeyo an effective repeat some action like they start stimuli habkan la leeyahay mataqaanaa horta positive mechanism haddaan concept kasii qaadan wuxuu ka hadlayaa waa habka horta wuxuu yahay habkan waxaa lagu tilmaamaa vicious cycle baa lagu tilmaamaa cycle-ka xun baa lagu tilmaamaa oo muxuu isagu sameynayaa waxyaabo wuxuu sameynayaa markay tusaale ahaan iminka start stimuli ma kala bilaabo kale in intii kasii badan oo kale waxaynayaa amplifying wixii self amplifying changes weyn uu sii balaaranaya wixii waxyaabo uu sii farbadinaya haddii intii normal lagu talo kasii farbadinaya markasti oo waxyaabo kasii baxsan mu geenaya normal way buu sameynaya waxyaabo normal ka baxsan mu sameynaya so produce change production waxa soo produce gareyn kulay rapidly change si degdeg ah loo bedelayaa buu kulay oo kor u dhaco salahan child birth markay hooyada ilmaheer dhalayso oo kale haduu ilmaheer ku adkaado soo bixido kale ilmihiina foosha si adkaanayso markaas oxytocin waxa loo sidinaya hadhow arki doonaa kaasay keenaysaa uterine contraction markaas contraction ilmihiina soo sameynaya ilmihiina meesha ka baxay marka meesha waxa dhici kara inuu meesha dilaacimaad warna meesha waa dilaacimaad oo kala dhici karta blood clotting ma dhici karta in clotting ka jirka la waayo kala dhici karta sometimes marka bloodku clot karanayo in substance-ki fibrinogenic clot karanaysa in la waayo markaas bloodku socon kara markaas xanuun keeni kara protein digestion baa dhici karto xilliyada protein digestion kala sameynaya taqaanaa GI-geena lagu digestion kareeyo la burinayo proteinska baa waxa dhici kara in la soo sii daayo acid fara badan si loo sii burburiyo protein digestion si proteinka ay uga qayb qaataan acid digestion-keeda marka kastoo la soo sii daayo acidicna waxay u fiican tahay in la burburiyo proteinka haddaba negative badliga habkan leeyahay positive mechanism maxaa ka khuseeya protein digestion waxa ka khuseeya wuxuu yahay haddii acidic fara badan la soo sii daayo xilliyada protein digestion-ka ay acid ka fara badan waxa la burburinayo ay meesha imato haddii acid fara badato waxa dhici karta inay caloosha rolis ku samayso in leeyahay caloosha rolis ku samayso inay meel fara badan dhaawacda dhici karta kaas daraadeed protein digestion ka qayb qaadanaya soo kale generation of nerve signals waa dhici karta the negative feedback mechanism marka la adeegsanayo marka leeyahay positive feedback mechanism marka leeyahay nerve impulseska waxa jira xalaado mataqaanaa voltage gauge sodium channel waxa jira oo waa wada ay soo marto mataqaanaa sodium say u sababto generation of nerve impulses of nerve signals soo saarto ay miibsata sodiumta haddaba mataqaanaa positive mechanism wuxuu yahay waxa furmaya in far badan hadda kaliya marka ay soo dhacdo mataqaanaa isoo sheegay soo dhacdo sodium khaas markay ka soo gasho mataqaanaa voltage gauge sodium channel markay ka soo gasho kaliya waxay sabaysaa generation of nerve impulses yaroo loogu talagalay intii in u fiican ama intii in loogu talagalay oo habka waxa la yiraahdaa tertiary stimulus la hadhow baan gaari doonaa marka tertiary stimulus waxay tahay habka ugu yar mataqaanaa lagu qiyaasi karo nerve impulse in la soo produce gareeyo nerve impulses kaasoo set pointkiisa leh waxa lagu talagalay haddaba positive mechanism uu ka sii farbadan yahay waxa soo galaya meesha sodium far badan markay sodium soo gasho salkii waxay noqonaysaa in salkii hyper depolarization ama depolarization far badan salkii ku dhaco hadduu salkii depolarization ku dhacay sodium far badan soo gashana
dee impulseski ama mataqaanaa xogtii way soo fara badan baa soo galaysa jirkii, maskaxda mid ay ku jawaabtay garan waysaa, kaa damage bay keeni kartaa. way marka leeyahay positive reward mechanism wuxuu kusii labalaaban yahay lagu overall negative reward mechanism weeyaan. way noo socdaay mataqaanaa marka leenahay waxyaabaha ka dhacay soo sheeg positive reward mechanism waxaa kamid ah, waa hoos socda example ahaan, hadduu beersiga marka uu buko heart attack kale uu buko, hadduu heart attack buko waxaa dhici karta dhiigii lama pump gareyn karayo, bloodkii mataqaanaa si focus meesha ku qoran waxay yahay hadduu minka heart attack ku dhaco qofkii dee heart attack muxuu ahaa pumping the blood kuma bigelinaya xoguma bigelinaya to the peripheral tissue, markuu peripheral tissue wada geeyo mataqaanaa ayuu geynaya soo ma. haddii uu heart attack ku dhacdo heartiga uu pambigelintiisa dhicifto maxaa dhacaya, dee bloodkii waa jirkii bloodkii baa yaraanaya, markuu bloodkii yaraado maxaa dhacaya, dee salalkii la geenaya ama meelihii la geenayay baa bloodkii waayay, meel kasta haddii bloodkii weydo maxaa dhacaya, dee xanuun baa ku dhacaya sida heart muscles haddii la gaarsiin waayo bloodka, dee coronary artery waxaa dhacaya coronary disease xanuun la dhaha dhacaya oo maskaxdii mataqaanaa wax yeelaya, heartiga wax yeelaya oo heartigu dilaaci karaa, waxyaabo iskala keeni kara. soo kale brain taa dhici karta, brain tumor buu keeni karaa, ischemia wuxuu keeni karaa mataqaanaa waxa la dhahaa stroke waxa la dhahaa keeni karaa, waxyaabahaas kale uu keeni karaa mataqaanaa hadduu brain ka yaraadana. oo taas waxay tahay mataqaanaa isoo sheeg heartiga. way conceptkan ka sheekeynayna maanta leel mataqaanaa wuxuu interim ka sheekeynayaa, kadib salkii ugu dayta waxaan ku dhacay thaldasan oo de salkii u dhimanaya. sababtoo ah baa lagu yiri, sababtu maxay tahay heart muscles oo sanadkad waa sababta heart muscles u dhimanayaan ma helaan baa lagu yiri, because heart muscle-ku ma helaan lagu yiri mataqaanaa insufficient nutrition iyo oxygen ba activate the heart become weaker and weaker. marka hadduu mataqaanaa heartigu ma helaan lagu yiri leeyadiisu mataqaanaa wax oxygen waxa ma helaan baa lagu yiri nutrition kaliya ma qataana bloodka xagga uga yimaada heerada bloodka waayaan dee xanuun bay keeni karaan, xanuun nafar badan keeni karaan, kaasoo ugu dambeynta ku sameeya thal death buu sameeya salkii inuu dhinto. way waxyaabaha mataqaanaa maxaa kamid ah isoo sheeg maxaa kamid ah example-ada ku jira mataqaanaa positive mechanism maxaa kamid ah saan hadii soo sheegayna waa kan marka mataqaanaa ay la stimulate gareyn nerve fiber-ka waxa furmaya open sodium channel soo furmaya, maxay soo maraya voltage gauge sodium channel gated meel wado mataqaanaa voltage gated meel wado la yiraahdo mataqaanaa voltage gauge sodium channel bay soo maraysaa, sodium ion ba soo maraysa, kadib waxay soo galaysaa markay salkii soo gasho waxay sabaysaa inay mataqaanaa sodium fuse sodium inay stimulate gareyn lagu leeyahay to open hal sodium khaas soo gashay waxay stimulate kartaa sodium fara badan, kaasoo soo galaysa more and more sodium channel oo furmay, kaasay dhaca keenaysa repetitive action bay ku sabaysaa marka mid ku jawaabo salkii garan waay. sida blood clotting kale tusaale ahaan blood clotting mataqaanaa hadduu bloodkii mataqaanaa wax clot gareeyo la waayo bloodka uu sii deynaya oo saas uu soconaya mataqaanaa dhiigii oo mataqaanaa xanuuno kala duwan buu keeni karaa. marka waxaa loo isticmaali karaa positive feedback mechanism baa lagu isticmaalaa kulli sida tusaale ahaan oo kale mataqaanaa waxa kaloo la isticmaalaa mataqaanaa xilliyada LH surge la dhahaa, LH surge luteinizing hormone surge waxa la dhahaa jirto positive mechanism lagu isticmaalaa isaguna. oo habkan isaguna wuxuu yahay waxaa jirta xilli la yiraahdo pre-ovulatory, waxaa jira xilliga la yiraahdo mataqaanaa pre-ovulation la yiraahdo, xilliga ovulation ka dhicin weyn oo xilliga ka horeysa before ovulation la yiraahdo. way maxaa dhacaya haddaba xilligan waxaa dhacaya hormone la yiraahdo, waxaa jira hypothalamus wuxuu diinaya hormone la yiraahdo gonadotropin releasing hormone kaasi pituitary-ga imanaya qaybtiisa anterior pituitary gland-ka markaasuu soo sii deynaya buu kulli LH soo deynaya, LH kani ovary-gu dhaqmaya, ovary-gan waxaa la doonayaa in ovulation la sameeyo egg yar la soo saaro, egg marka la soo saarayo waxay sababaysaa xanuun oo ugu wacan tahay LH surge, xanuunkaasoo sii fara badanayo u keenaya haweeneyda ama mother u keenaya xanuun u keeni kara, habkaasna uu soo galay LH surge positive mechanism marka la leeyahay. way sidoo kale maxaa kamid ah xilliyada labarka haddii weynta ka sheekeyno labarkan soo dhex galno, labarku wuxuu ahaa mataqaanaa waa dhalmadii marka ilmaha hooyada dhalayso kale labar ku jirto kale markaas waxa dhacaya uterine contraction baa dhacaya, markaasuu baby-gii cervix-kii ilmihi yara mataqaanaa wuxuu dhaawici karaa cervix ku dhaawici karaa sababtoo ma soo bixi karayo, waxaa lasoo produce gareeyay action potential fara badan baa lasoo waxeeyo mataqaanaa ilmihi yara waxa la doonaya inuu soo baxo meeshii markaasaa hormoonno fara badan lasoo sii deynaya,
hypothalamuska mataqaanaa la imanaya intii qaybtiisa posterior pituitary glandka bukaas oo si soo deynaysa. Oxytocin waxay sabaysaa contraction inuu ku sameyso uterine muscleska dabadeetana stretch waxay noqonaysaa stretch inay adkaanayaan mataqaanaa uterine mataqaanaa contraction buu noqonaya mataqaanaa uteruski inuu contraction noqdo waxa ku soo gudbiyeen meeshayda waxba kama soo gudbiyeen meeshii dhaawac meel yar ka saameynay either inuu dilaaciyo mataqaanaa meeshii dilaaciyo ama inuu dhaawac labada mid noqonaysa kaliya systemka khaas lagu joogteyn karayo wuxuu yahay waa in laga saaro removing stimuli macnaha waxa scouts sababay in laga saaro weyn waxa lagu joogteyn karaa positive mechanism isaga waa qodobka bas waxa lagu joogteyn karaa waa qodobkaas muhiimsan isaga soo waxaad garatama waxyaabaha nooca kamid yihiin waxaan kasoo sheekeynay maanta surface dilation ka noqonayay mataqaanaa dilaacayay stretch noqonaysa waxyaabaha aad dar kasoo sheekeynay weyn kasoo wuxuu yahay waxa jirta ilmaha yar markuu dhalanayo isagoo mataqaanaa horuso bixi waay hadduu horuso bixi waayna maxaa dhacaysa waxa mataqaanaa anterior pituitary glandka mataqaanaa jeeda posterior pituitary glandka hoos deynaya wax loo yaqaan mataqaanaa oxytocin kadib oxytocin taas waxay sabaysaa uterine contraction bay samaysaa ilmihi soo saar bay leedahay meesha stretch bay noqonaysaa marka taqaanaa waxay stretch noqonaysaa uterine muscles waa stretch noqonaya kadib waxay soo saaray ilmihi meesha ka soo bixi kari waayo oo either mataqaanaa cervix ka dilaaciyo ama cervix la raacay qaybtan hore mataqaanaa wax la raacay kamida mataqaanaa u soo dhow qaybta fajina in marka dilaaca soo karta oo xanuunka la hawkeen way inta insha Allah maanta ku jeesan doonaa kusabkeena insha Allah insha Allah kay socon doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh